Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga ayaa malxiis ka ahaa arooska ciyaaryahanka kubadda cagta ee Jarmalka Mesut Özil oo Jimcihii dhacay waxaana baraha bulshada qabsaday sawirka madaxweynaha Turkiga. Mesut Özil oo waqtigaas 30 jir ah ayaa xafladda arooska uu kula qalgalay gabadhii uu doonayay oo mar noqotay haweeneydii ku guuleysatay quruxda tartanka Turkiga waxa uu ka dhacay hotel kuwa raaxada kamid ah oo ku yaala marinbiyoodka kala qaybiya qaaradda Yurub iyo Aasiya. Lamaanahani waxay markii ugu horeysay isbarteen sanadkii 2017 waxaana bishii Juun ee 2018 ay shaaciyeen inay isguursanayaan. Özil oo asal ahaan ka soo jeeda Turkiga ayaa tartanka koobka adduunka ee kol hore ka hormariyay sawir uu la galay Erdogan waxaana ka dhashay cara xamaasad leh kadib waxa uu iska casilay xulka qaranka isagoo ku sababeeyay cunsurinimo iyo ixtiraam darro lagula kacay markii sawiradii lagu baahiyay Jarmalka. Özil iyo gabadha uu guursaday arooskooda waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Turkiga iyo waliba marwadiisa. Hep evli çiftlere bir tavsiyem var. Bunu da artık herkes biliyor. Şimdi bunu tabii burada tekrar edeceğiz.